isbedelka jidhkaagu goormuu dhacayaa horta maanta saa codkayga aad maqlayso xabeeb baa ku jirta oo bahalkii hargab ahaa ayaa igu dhacay laakiin u joojin mayno oo waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan aad ii maqlayso fiidiyowga u dambeeyey waxaynu ka wada hadalnay wuxuu ahaa qodobka koobaad ee aasaaska u ah markay noqoto ka shaqaynta caafimaadkaaga iyo isbedelka aad doonayso maanta waxaynu ka wada hadlaynaa qodobka labaad oo ah isbedelka jidhkaagu goormuu dhacayaa horta inaad barato oo aad fahantaa marka hore waa muhiim haddii aanad ogeyn xilliga uu dhacayo isbedelka aad doonaysaa way adkaanaysaa inaad gaadho isbedelka iyo saad rabto inuu jidhkaaga iyo caafimaadkaagu ay ahaadaan markaas intaynaan taa u gudagelin baa waxaan rabaa inaan marka hore kula wadaaga adiga dhowr qalad oo anigu aan samayn jiray waqtiga jimicsiga aan bilaabay horta miisaankaygu wuxuu ahaa 66 intaas u dhaxeeyay oo desan ayuu shape-kaygu weekaa jidh ahaan markay noqoto sidoo kale de maskax ahaan iyo mataqana dareen ahaan kuma faraxsanayn markaas waqtigaas waxaan horta xagga jimicsiga hadday noqoto kow waxaan jiimka ku jiray waqti fara badan oo mataqaanayay 2 saacadood 3 saacadood iyo dheeraad ayaan jiimka aan ku lumin jiray waqti ahaan markay noqoto oo imika midsan loo kale haddii aan samaynayo xabadka maalinka waxaan ku dari jiray gacmahan wax yar raacin jiray haddana waxaan raacin jiray calooshan wax yar raacin jiray haddana lugaha qaybta hoose ayaan wax yar raacin jiray oo waqti fara badan ayaan jiimka aan ku lumin jiray taa waxaan ka bartay waxay ahayd intaad wixii aad kolba in yar aad ka samayn lahayd inaad waqtigan aad soo koobto muruqa jimicsiga siinaysana si adag jimicsiga aad u siiso oo disaan ku yiri waqti badan baan ku jirtay oo 3 saacadood iyo dheeraad ayaan ku jiray markay noqoto qof aan saxaabnahay markaan israacno waqtiga waa marka jiimkii xiisaynayso te qofada saxaabtiin baa u yeelanaysa markaan qof israacnana waxaan ku jiray in ka badan intaan kaliya ku jiray oo marka qaar 3 saacadood iyo dheeraad 4 saacadood iyo dheeraad waa markaad kaliya tahay marka kale isku mid maaha markaad qof aad saxaabtihiin oo kula socdo de waa isla sheekaysanaysaan wada hadlaysaan waa sira caawinaysaan telefoonkaad yara eegaysaan waqtigiiba ma taqaanayay waxaad arkaysaa isaga oo ka tagay markaas qaladka ugu weyn aan samayn jiray taasoo ahaa oo ma taqaanayna jiimka waqti fara badan aan ku jiro oo de saacadahaas wax kale ayaan ku qaban lahaa qaladka labaad aan samayn jiray wuxuu ahaa markay noqoto jiimka waqti baa jirtay aan xasuusto 17 cisho ayaan jiimka oo isku xiga aan tagay oo hadda markaan dib aan u eego horta wixii markaan garanaysay markaan garanahay isku mid ma aha markaas hadda markaan dib u eego waan yaabaa oo waxaan idhahdaa 17 cisho oo isku xiga maxaa jiimka u tagtay way waqti baa jirtay intaan 7 cisho isku xiga aan tago haddana 10 cisho isku xiga aan tago haddana ma taqaanay 15 cisho isku xiga aan tago aan eegay kulba jidhku siduu yahay marka maalimo fara badan oo isku xiga inaan jiimka aan tagay oo de taa waxaan ka bartay waxay ahayd khasaaran uu iga soo gaaray waayo wax kasta markaad si qaldan aad u samaynayso khasaaro uu ka soo gaaraya oo de ta ugu weyn taa kala kulmay waxay ahayd dhaawacyo fara badan markay noqoto lugaha jilbaha markay noqoto xabadka markay noqoto dhabarka markay noqoto gacmaha waayo muruq walba waan ku celcelin jiray 17 cisho aan isku xigeen jiimka aan tagay oo de 17 cisho kaliya tama tagin mar waxaan tagi jiray 7 cisho isku xiga mar waxaan tagay 10 cisho isku xiga markaas qaladka labaad ee ugu weyn kaasoo ahaa de dhaawac fara badan uu iga soo gaaro de waxay noqotay inaan jimicsigii xoogaa ka yara maqnaado isbuuc 2 isbuuc si meesha ay xanuunaysa ay u yara bogsato waayo jidhku isku wada xiran yahay waqtiga waxaan xasuustaa markuu dhaawac ka soo gaaro xabadkii garbuhu way isku xiran yihiin oo xabadka hadduu dhaawac ka soo gaaro garbaha jimicsi ma siin kartid haddii garbaha dhaawac ka soo gaaro xabadka jimicsi ma siin kartid haddii dhabarka qaybta hoose dhaawac ka soo gaaro caloosha xaggan hore jimicsi ma siin kartid marka way isku xiran yihiin muruqyadii markaas khasaare weyn baa iga soo gaadhay qaladka labaadna markay noqoto qaladkii saddexaadna wuxuu ahaa inaan wixii si dhaqso ah aan u rabay oo de waxaan doonayay kaliya waxay ahayd waqtiga jimicsiga markaan sanad u eekahay kuma faraxsanayn oo waxaan doonayay waxay ahayd isbedel dhaqso ah oo waan raadinayay taa waxna waxa weeye wax aad xiisaynayso waxna waxa weeye
waxa aad doonayso isku mid maaha xiisuhu waa wax dhamaanaya waa imaka anigoo saakaytan iska soo kaco idhaahda isbedel baan doonayaa waa dareen waa waxaad iska xiisaynaysa kaliyaata xiisaa wax laga yaabaa ama isbedelkaan saaka ku soo kacay in hal isbuuc ama laba isbuuc uu yahayo kadibna aan ka xiisa dhaco taa kama hadlay waxaan ka hadlayaa doonitaan markaad wixii aad doonayso wax kasta waad u samaynaysaa markaas waxaan doonayay waxay ahayd inaan si dhaqsa isu bedelo kelmaddan waan kugu celinayaa si dhaqsa ah ayaan wixii aanu doonayay oo waxaan doonayay kaliyaata waxay ahayd si dhaqsa inaan u helo isbedelkii si dhaqsa inaan miisaankaan u kordhiyo si dhaqsa inaan jirkii mataqaanay aan u koriyo oo dee taa waxaan ka bartay wax kastoo mataqaanaa si dhaqsaa kuugu yimaadaa si dhaqsaa bay kaaga tagaan laakiin wax kastoo waqti qaata waa wax wanaagsan oo waqti weyn ku haynaya ama waqti dheer ku haynaya marka taan ka bartay taa waxay ahayd wax kastoo dhaqsa kuugu yimaada faa'iido marnaba kuuguma jirto oo desaan ku yiri wixii waxaan u doonayay si dhaqsaa markaas haddii imaka la eego hadda halkan taaganahay imaka shape-kaygu san buu yahay oo miisaankii waxa weeye 107 kiilo hadda soo kala dib murqihii waan dhisay meel kasta jirka labada sawir ee hadda aad arkayso waqti fara badan ma u dhaxeeya hal isbuuc iyo laba isbuuc iyo hal sano iyo laba sano uma dhaxeeyaan waqti fara badan ayaa u dhaxeeya markaas tikaliyaati haddana imaka halkan hadda taaganayo waqtiga dib aan u eego waxaan jeclaan lahaa in mataqaanay aan helo qof isaxa oo igu yiraahda qaladkan ha samaynin ee mataqaanay ka joog jimkan inta cishay isku xigay aad tagayso waqtiga faraha badan jimka aad samaynayso jooji soo kala dulqaad yelo waqtiga jimka anigu aan bilaabay YouTube la daawaday iyo Instagram la daawaday iyo cid wax soo dhigta may jirin waqtiga oo dee cid aan ku dayda may jirin oo nisraahdo qofka tala ka qaado ama qofka tala weydii markaas qaladaadkaasna wax badan bay bareen oo hadda markaan dib aan u eego de marnaba ma sameynaya qaladka marnaba adiga kugula ma talinayo inaad qaladaadkan sameeyay marnaba aad samayso way faa'iido kuma jirto oo de khasaare ayaa waqtiga iga soo gaaray haddii aad adiguna samayso qaladaadkan haddaan ka hadlayo aan anigu aan soo sameeyay de faa'iido kama soo gaaraysa ee khasaare ayuun baa ka soo gaaraya markaas qaladaadkaas waxay ahayn qaladaadkii aan mataqaanay sameeyay waqtigii bilowgii marka waxaa rajaynayaa inaad mataqaanay sawiraad ka yara haysato de marnaba aanay ku jirin faa'iido waxyaabaha aan sameyn jiray haddii aad hadda adigu shakhsi ahaantaada aad samayso waayahay haddii aynu haddaba u nimaadno isbedelka jirkaagu goormuu dhacaya anigu waan isweydiiya haddadaan kula hadlayo waan isweydiiya oo dee markaad ka shaqaynaysa caafimaadkaaga su'aalo badan baad isweydiinaysaa oo adiga waxa laga yaabaa guriga markaad joogto muraayada markaad ag marayso markaad mataqaanay soo maydhato markaad jimka joogto muraayada aad isku eegayso inaad isleedahay jirkaygu isbedelay haddana 2 cisho 3 cisho kadib waxaad arkaysaa isbedelkii aad tiri uu isbedelay oo meeshii taagnay marka isbedelkan aad raadinayso mataqaanay anna aan raadinayaa goormuu dhacaya horta waxa muhiim ah inaynu isla fahantaa haddii marka miisaankaagu uu yahay kaba soo qaad 70 kiilo waxaad rabtaa inaad miisaanka kor u qaado ama waxaad rabtaa inaad miisaanka hoos u dhigto ama waxaad rabtaa inaad mataqaanay muruqyo aad dhisto ama waxaad rabtaa inaad kaliya jirkiga shape-ki iyo miisaankaagii aad isku dheeli tirto ilaaliso horta intaasba waxaad ogaataa haddii aynu eegno xagga jimicsiga markaad haddaad guriga ku samaynaysa haddaad jimka ku sameynaysaba waa isku mid oo de mataqaanayay dhaqaaq baad samaynaysaa taa markay noqoto isbedelku wuxuu dhacayaa maaha marka aad jimkaad ku jirto ee aad biraha aad qaadayso haddii aad guriga jimicsi aad ku samaynaysa haddaad jimkaad ku sameynaysaba saan ku yiri waa isla halkii laakiin markaad jimicsi aad samaynayso ee aad jirka dhaqaajinayso waqtiga isbedelku ma dhacayo ee haddaba goortu dhacaya waxa weeye marka aad ka maqan tahay jimicsiga markaan imika ku leeyahay jimka markaad joogto waxa dhacayaan rabaa inaad ogaato marka hore jimka markaad joogto ta koobaad ee aad samaynaysaa waxa weeye
in aad jirkii stress aad ku furto waa number 1 jirkii haddaad guriga ku samaynayso bira qaadaysi haddana qaadahaynba jirku markuu dhaqaaqayo jirkii stress baad ku furaysaa oo dama taqaanay markaad iminka metron oo kale waad ila aragtay markaad gymkaad joogto birtii markaad qaadayso waa inaad si adag u qaado haddii marka gacmaha kale aad samaynayso ama xabadka kale aad samaynayso waa inaad si adag u qaado oo aad haddaad birtaas iminkaan soo qaado 5 kiilo oo aan saan u qaado isbeddelima imaanayo laakiin haddaan bir soo qaado oo aan challenge garaynayo muruqii taa macnaheedu waxa weeyaan muruqii stress aad ku furayso horta tayna niyadii aad ku hayso laba jimicsiga markaad samaynayso ta dhacaysa waxa weeye in aad muruqii garaacayso haddaba inaad ma taqaanayo muruqii iminka metron loo kale markaad bir aad qaadayso haddii markaa muruq yaro fudud baynu soo qaadan iminka saan ku yidhi gacmaha markaad qaadayso haddii markaan soo qaado 2 dhambal ama bir dheer aan soo qaado oo aan korgeeyo oo aan 10 xabba ka sameeyo oo aan haddana sii wado 5 xabba aan ka sameeyo waad ila aragtay markaad jimicsiga aad siinayso muruq uu ku xanuunaa muruqi soo maaha taa macnaheedu maaha inuu muruqi korayo markaad gymkaad joogto muruqi waad xanuujinaysaa oo waad garaacaysaa marka kulay waad garaacaysaa muruqi stress markaad ku furto ee aad garaacdo hadhow toole markaad ka soo baxdo ayuu muruqi isbedelayaa tusaale ahaan oo kale haddii markaa xabadka jimicsi aad samaynayso wiilha ama gabadhaha ama dhexda caloosha jimicsi aad siinayso ama garbaha aad jimicsi aad siinayso muruqay doonta ha noqoto markaad jimicsi aad siinayso ee aad muraayadda isku eegto waxaad arkaysaa jirkiyo soo bararay taasaa kamida markaad aragto inuu muraayadda tusaale ahaan oo kale markaad muraayaddii isku eegtaad aragto inuu jirki soo bararay muruqihii aad arkaysa garbihii oo dhan inay soo baxeen hadhow toole markaad ka baxda haddaba ee aad guriga tagto adaan ku dhiibay ma ila aragtay in muruqii jimicsiga aad soo siisay uu yaraado gebigiisuba gebigi markii hore muruqu saas uu weynaa oo waxaad aragtay muruqiyo soo bararay oo aad arkayso inuu garankaad xidhan tahay ama waxaad jimicsiga aad ku samaynayso uu ku dhegay markaad ka soo baxdo guriga aad tagto ma ila aragtay shakhsi ahaantaada in muruqii aad jimicsiga soo siisay gebigiisu uu isku shuuqo oo uu yaraado taasaa kamid ah marka niyadii ku hay markay noqoto markaad gymka aad ku jirto muruqii stress baad ku furaysaa sidoo kale muruqii waad xanuujinaysaa oo muruqii waad garaacaysaa ee markaad stress jirka aad ku furto waxna aad garaacayso wax ma dhisaysid ee taad samaynaysaa waxa weeye muruqii hadda markaad garaacdo stress aad ku furto isbeddelku goortuu dhacaya waxa weeye markaad jimicsiga aad ka baxdo markaad hurido markaad guriga aad joogto markaanad wax jimicsi aanad samaynahayn markaasuu isbeddelku dhacaya ee marnaba isbeddelkan aad doonaysaa kuma dhacayo jimicsiga aad siinayso markaad gymkaad ku jirto sanmi kuuli tusaalahan ku soo qaatay muruqaad jimicsiga siisay hadhow tolo waxaad arkaysaa isagoo sidiisii ku soo noqday muruqaad jimicsiga soo siisay marnaba saa u ekaan maayo imanka haddaan anigu gymkaan tago oo aan gacmaha jimicsi aan siiyo waxaan arkaa gacmahaygu inay soo bararaan oo dama taqaanaya aan arkaa in muruqii soo baxay markaan guriga yimaado 2 saac kadib maalin hadalkeeda badda 2 saac kaliya kadib waxaan arkay in muruqu halkiisii ku noqday waxaan ogsoonahay waxa weeye in muruqu hadhow toole isbedelayo marka waxaan rabaa inaad si wanaagsan aad u fahanto markaad gymkaad joogto marnaba niyadaada ha gelinin in uu jirkaagu isbedelayo markaad gymka joogto haddii aad hore isu weydiisay su'aashan ah gymka markaan joogo jirkaygu san buu weeyahay laakiin markaan ka soo baxo sidan buu weeyahay jirkaygu oo muruqyadu way baaba'ayaan maya ma baaba'ayaan ee muruqii markaad stress iyo ma taqaanay xanuun aad ku furto hadhow markaad ka soo baxdo muruqii stresskana uu ka baxayaa xanuunkii uu ka tegayaa sidoo kale ma taqaanay bamkii ama ma taqaanay dhiiggii aad kicisay jidh ahaan uu ka baxayaa oo ma taqaanayay taa macnaheedu maaha muruqii aad jimicsiga aad soo siisay inuu baaba'ay ama aanu dhismahayn maya
markaad cunto wanaagsan jidhkii aad siiso ayaad si wanaagsan aad u nasato ayaad si wanaagsan mataqaanaa xoog aad u saarto hurdada markay noqoto nasashadu isku mid maaha tad guriga joogto iyo tad seexanaysa isku mid ma way kala duwan yihiin aad hurdo wanaagsan aad seexato markaas haddaba jidhkii isbedelaya oo sidaa doonaysay uu noqonaya laakiin haddii aad muruqii aad garaacdo jimicsigii aad ku garaacdo maalin kasta waqti badan jiimka aad ku lumiso cunto wanaagsan aanad cunin sidoo kalena hurdo wanaagsan aanad seexan iskiilow inuu isbedel dhaco isbedelku wuxuu dhacayaa markaad jimicsigii aad tagto ayaad jidhkii jimicsi wanaagsan aad soo siiso stress ku soo furto soo xanuujiso bam jidhkii aad soo siiso aad ka soo baxdo cunto wanaagsan aad cunto aad nasato markaasuu jidhkaagu isbedelaya ee marnaba ha ka raadinin in aad isbedel aragto ama jidhkaagu u eekaado saad u eegtahay markaad jiimkaad joogto waxaan rajaynayaa bointigan inaad si wanaagsan aad u fahantay marka xigteed jimicsiga aad tagto tan xasuusno oo niyaddii ku hay isbedel kuma samaynaysa jiimka ee isbedelkaagu wuxuu dhacayaa markaad guriga joogto iyo inaad jidhka jimicsi aanad siinahayn xoogga inaad jimicsi wanaagsan aad siiso jidhkii kadibna aad ka baxdo waad nasato suu jidhkaagu isu bedelo saa darteed bay muhiim u tahay isbuuciinta cishaad jimicsigaad siinaysaa inay kooban tahay laba waqtiga kooban ee aad jimicsigaad ku jiraysaa inay kooban tahay ood muruqii xanuujiso stress aad ka furto pump jidhka aad siiso suu hadhow toole isu bedelo muruqii waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan aad u fahantay waxaa inoo balanaa fiidiyowga xiga peace out